halkani waa xaafadda Islii oo ka tirsan degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi. waxaa mar kale caawa si aad ah looga soo dhaweeyay guusha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana ay ku dhawaaqayaan erayo dadka isu soo baxay ay ku dheehan tahay farxad iyo damaashaad iyo hoonka baabuurta wadooyinka oo ay socdaan xilli ay 6 saac oo habeenimo ay gadaal u dhaaftay. hambalyo kal iyo laab ah ayay isu bogaadinayaan si habsami leh, waxaana ay sidoo kale tilmaamayaan madaxweynaha laga guuleystay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay aad uga xumaadeen qaar ka mid ah dadweynihii isu soo baxay guusha laga helay, taasi oo baarlamaanka ay uga cabanayaan in ayna codsigoodii aqbalin oo daba kala fulinayaan. qaarna waxay leeyihiin waxay ku sifoobeen inay lacag ka doorteen mustaqbalkii qaranka. isu soo baxan la walabtaan waa waddo weyn oo taasoo baniya xaafadda Islii ee degmada Kamakunji ka tirsan magaalada Nairobi ee caasimadda waa Kenya. dabaaldegu waa u socdaa ay ugu hambalyeeyeen madaxweynaha cusub, waxay leeyihiin damaashaada. haddaba aan idiin soo gudbiyo isu soo baxa doorashada madaxweynenimo ee Soomaaliya waxa ay ka yiraahdeen لكن وحالنا أفر سنة معارضة يسوق سارية وأنت اليوم بالله وتكاس والله أنت مجبور ما تقول سماع مركورة إن شاء الله تعالى عندنا ناس مثل في عن سيور سما حسن وعقلة ولا ما شاء الله ما شاء الله إلهي أمرك بابا ويلقى عالدرا
intaasi ayaan daawadayaal kusoo afmeeraynaa haddii aanu nahay bahda hufan media barnaamijkan intaaynu mid kale ku kulmi doonana nabadgelyo.